جعل الجزء ده يوتيوب كي أحمد هيو هدي أتوقع صرت عرجينا سبسكرايب نتلاقى جعل برامج كنا عن قصة أن جعل وحنا كوي إن جروب بضع يوروب أي أدو بطي سومالي ذا جروب بضع قبل حلا فري جعل مريكا كندا يوروب بيوبدين وقبله لكان حتى والله فري كهال كان لو جورسنا الله أما ميد مركل لقينا على فرا عدد كجروب بضو ويترلا فين جعل marka jaaliyal gabdhaha garoobada qaarkood baa halkan ku eegayna inta badanna ninkii furay dhibaatada ay kala kulantay ay aad ka saartaan nin walba oo dibadda ka guursada gabdhaha garoobada gabar baa halkan ku hayna tusaale baan soo qaadanay jaaliyal waxa ay rabaa dul istaagaya hay'ad iminka way ka cabanaysaa wiil bay waxay leedahay telefoon ayaa ku hadlaysay telefoonka aad ku hadlaysay aan kaaga hakaday intaas ay ka carootay ay ka jawaabaysaa oo ay ka hadlaysaa tusaale waxay soo qaadanaysaa dadkana ayaan qabay fiiriya waxay ku haysataa wiilka wax kala ma ahan ninkii hore ay isqabteen oo ay kala tageen wili way loo bilaada xumaan ay u qabto kii hore ay kan garanaysaa ku eedaysaa wili fiiriya si aad ii fahanto marka waraysa ayadan dhageysanayna jaalal maxallada ju alahayd kulaha ju ilaaliya waxaa idin sheegaa waa serious way ilaali marka muxuu yiri ju aalahayd muxuu ka wadaa teleefanaa ku hadlaysa waay xariifkan teleefanaan ku hadlaayay wuu maqliyay iima soo bixin teleefankoosan ku taagaya maqlaysaa jaaliyal gabadhaan waxay ka caraysan tahay iyadoo teleefan ku hadlayso ayaa wiilkii wax uu ku hakaday guriga sababtoo teleefan bay ku hadlaysaa la socoyaa telefonka ay ku hadlaysay uu ka hakaday ay ka xanaaqsan tahay maxaa soo bixi weys isagoo soo baxay telefoon la qalin dhaamin haye oo maanta dhan telefoon ku hadlaay dibcan gorobada Yurubna sidaas u badan yihiin oo maanta dhan telefoon ku hadla hatta qaarkood baa inta saas baarka u qabta mara kula xirta oo la wareegay si soo baxanin aan telefoon maanta ku hadlayso soo in ka sugama waa gabdhaha alla sheekaysato waxay ku eedaysaa maxaa soo bixi weys aan telefoon ku hadla fiiriya جو ayaa tiribay telefoon baa ku hadlaysay intaas ka xanaaqsantay way si hadlaysaa maxay leedahay dakana hore ayaan qabay kiis hore yaalay kiiskaas hore yaala waa maxay ninkii hore ayaa markuu yiri telefoonka ku hadlayso tirada badan iska jooji waa soo fahmaya kiis hore yaalay marka kii hore ku dabaqaysaa haddaan telefoon ku hadlayso guulku ka hakado yiraahdo iska hadasho way ku dib macnaha taa jaalay intaan si istaagin wax raad marka hore ayada marka la dhageysano iyadoo wiilkii markaas la kiis kale ay yaal ninka hore uu sameeyay yaa mid ka cusub lagu eedaaya andaysan waxa ju ma yiri maskaxdeeda maxay haysa kiis haro ju waxaana baa inay idin sheego waa inay wax ka baratiin faal hore yaalay waa maqlaysaa jaaliyal waxay leedahay faal hore ayaa yaalay waa maxay faylkaas hore ninkii hore ayaa iyadoo telefoon ku daldalmaysa yiri telefoonka badan jooji maandhay walaalay waxaaskiisii garo marka fiiriya waxyaabihii hore oo ninka ka tirsanaysa kamid ah telefoon tirada badan oo ay ku hadlayso waxyaabo ay sameey jirtay ama tusaale dabcan dawladda tusaale aan soo qaadanayna gabdhaha inta badan ninkii hore fiiriya ay ka haysaa kiis hore ayaa leeyahay afkeeda ka maqlaysa kiis hore ayaa loo maxay telefoonka ku hadlaysa telefoonka ku hadlayso ee faraha badan jooji walaalay kii hore isku qabteen kana waa kana telefoon ku hadlayay sidaas daraadeed aan guriga ku hakaday qolkan ku jiray maadaama aad wajigada iyo meelaha ku jirto telefoonka la wareegayso waa ku qalin dhaaminayso waa ka hakaday buli ay dagaashanta waa taas dagaal bi ku jirtaa meesha micna ku jiro ma xajalo ana fahantaan micna ku jiro waxa weeye gabdhaha kan garanaysaa qurbaha joogay iminka gabar garoob ah si loo qabay waa adagtahay kii hore ay ka tirsanaysaa kii hore wax walba uu sameeyay hadii adiga qaladka ka dhacaan ama wax lamid ah ay dhacaan ila aadana tahay waa qaldami kartaa dambiila tahay waliba waxa noqonaysaa kii waa ka duwantood double dambiila tahay waa inaad garataa ninkaas yaa keenay fiiriya dhibaatada gabdhaha garoobada ah ee qabaan waa mushak hada gabadha waxa ka muuqata mushakanimo shakisan tahay haddii telefoon gabdhaha ku hadlayso ka hakada dambigii waa maxay ويابسين يقول ما لا قبط ملحن لكن ما يقال قاعدة قرابة هذا صار في وأقول لي والله ما أعرف تلفون قولوا كذا تلفون كويس لكن أردت تصالح حكي أنت ويلي على جاب إنه واحد بدن وناق وصمين هايو وهو مقرن سأرين كجابيو وآذن وحباك ده إخرة
waxaa lagu qabanaa wax walba oo qalad ah uu sameeyo kii hore wuxuu sameeyey fahmiyaa waa garoobada maha gabadha gubow adigu aad jirtay ee ku naagta ah taasaa naag leedahay la socya midda tan garoobada iyo mar walba wax aqsan tahay oo ku dagaashan tahay qorigeeda oo cabaysan dagaal ay ku jirtaa kiis hore yaalay fiiriya hadalkeeda kiis hore ayaa yaalay qanci mayso wax walba oo la sameeyo marka dhibaatadaas haysta waxa kale soo baxay gabdho fara badan oo jeer ka hadlaya xuquuqda gabdhaha u doodna dhahaya way soo fariisanay dib iyada si gaar ah oo haysta oo iyada haysta ayaa waxay ka dhigaysaa mid caam ah garanaysaa dhibaatada kale waxay ku hayaan gabdhihii yaryar ee iminka soo baxayay ay dhib weyn ku hayaan gabdhaha tan garoobada afraad saac YouTube fadhiyaan Facebook fadhiyaan barbulsho soo fadhiyaan dadkii la hadlayaan dhalinyarada ay ragga Soomaaliyeed oo ceebeynayaan nimanku asaas iska jira nimanku asaas iska ilaaliya nimanku asaas waa sidaas gabadha yareeda ugu magaranaysaa iminka soo kacday ragga oo dhan balaay ka aaminsantaa sababtoo hada jeer gabarka weyn oo da kontonaad 40 ku jirto waxay arkaysaa rag caynis ragana markaas soo jajabsato dhowrna soo martay garoobeeye armala garanaysaa dhibaato ka jirta meesha dhibaato fara badan ka jirta burburna uu ka jira qurbaha oo dabcan arinta ka warhaysan ubadka laftigooda uu ku baaba'ay dhibaato fara badan dadka Soomaaliyeed oo qurbaha jooga ku haysta arinta waxaan uga faa'iideyn dadka Soomaaliyeed jooga inaan u sheegno qurbaha dhibaato fara badan ka jirta oo xagga nolosha ah taasana koow ka ah waxaan rabaa markaa halkan inaan baa uga diro gabdhaha garoobada ee Soomaaliyeed inaan dhiraado isku kalsoonaaw marka hore wiilka aad isheshaana ku kalsoonaaw qalbigaadana deji kii hore daqaradiisii ilaa ninka kana aad buursatay oo arag inuu yahay nin hor leh oo aadana oo qaldami kara hadii qalad ka dhaco qaladka waa la saxaa sax laakiin hal mar hadii wax ka sii noqdaan aadii uu ahaa kii hore ay magaranaysaa ay kala tageen ayaa waxa uu dusha laga saaraya kan جو ayaa tiriir gabadha hadda hadlayso maqlaysan fiiriya kiis hore ayaa liitay fiiriya kiis hore ayaa fiiriya waa inaad garataa marka dhulkaas jira gabdhaha garoobada ee Soomaaliyeed rag waa ragini isdajiya shisheeyaha u galinina dhaqan kala mid ah Soomaali baa tihiin isxasili ninka hore daqaradiisii iyo baladiisii inay ilooda isku day caafimaadkaada muhiim ah ina caafimaad qabta muhiim ah caafimaadkaada ku dadaal qofka hore faraaka qaadi ilo wiilka aas hesheena cusub iminka jooga ninka ku eeyna ku dag balana ka malaysan balada lama malaysto mar walba wanaaga la malaystaa wana malaysto barnaamijkan gabdhaha ku weerarmahay ujeedkaygu waxa uu yahay inaan gabdhaha tusaale oo iraado ninkii hore iyo ninkaan laba qof kaliya aadii uu lahaa inta soo qaaday kiis hore inta ka dhigtay kala dusha ka saaray taas ma isu jeedinay jaleel Axmed Tooyo oo sida qooban u dul istaagay ee magranaysa waxa weey garoobada Yurub cadadkina way ka bateen oo imika waxa oran karnaa 80% weey kuwii la keenay halkan waa la furay waa garoobeynayaan kuwii la guursanay daa'ir labada dhashay garoob noqonaysa arrintaas dhibaato kale taagan weey mid hadda dhamaantoodna cunay raadinayaan wax lagu sameeyay anu garanaayo hatta ninka marka la sheekeysanahay cad haysataa haysataa ay ku xisaabtamay inay degto nin yeeto nolosha ay macaansato hawsheeda kamid ma habo waxay ku xisaabtamay anu lacagta meeshii geeyana kan way wax ku sameeyaan garan way miig abi balaay kala baxaan waxay sameeyaan ma garano arrintaas waxyaabo aan fahmin ka mid ah marka hore baa lacag raadin nin faadi fiican dooro raga isdaji yoray gabdhaha garoobada awli waxa la rabaa gabdhaha ugu inay ka fiicnaadaan oo ninka ka dambe ay dooranayso si fiican u doorato si degan oo ma garanayso halka waxa uu soo jeedinayaa ka dambe uu guursato kii hore daqaradiisii kii hore dabiyadiisii ha ku saari kan jale Axmed Tooyo waxaan la sidaa iyo nabadgelyo